السلام عليكم داوديال كسو دواada wararka Gra TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo magaalada Addis Ababa uga yeeray Axmed Madoobe dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay inay natiijo wax ku ool ka rajaynayso shirweyne uu ilaamiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka dhacay Garowe Cabdirashiid Xidig oo horay u sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in madaxweyne ku xigeenkiisii ay ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ku xireen Kismaayo madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ka biyadiiday dalab uga yimid odayaal dhaqameed dhexdhexaadin ka dhaxwaday isaga iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Jubbaland oo ka dalbaday beesha caalamka inay si degdeg ah u farageliso xiisada gobolka Gado Puntland oo uga digtay ardayda wax ka barata deegaanadeeda inay taageeraan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadaniga Somaliland oo si kulul uga hadlay khilaafka cakiran ee ka dhex qarxay culimada gobolka Awdal iyo barasaabka gobolka oo lagu eedeeyay inuu diinta caayay qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV oo diyaar garooba iyagoo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gra TV oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeena idin kugu sheegayba ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya ku casuumay madaxweynaha maamulka Jubbaland ee aan caalamka iyo dawladda dhaxaba aqoonsanayn Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo saldhigiisu yahay magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah oo maamulka ila wareediye ka tirsan madaxtooyada Jubbaland ayaa u sheegay Gra TV in Axmed Madoobe looga yeeray magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya sida aanu xogta ku helnay Axmed Madoobe ayaa fariin ka helay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya taasi oo qusaysa in arrimaha gobolka iyo khilaafka si daba dheeraaday ee kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya ay danaynayso in dawladda Itoobiya ay xal ka gaarto oo ay dhexdhexaadiso isaga iyo dawladda dhexe si meesha looga saaro xiisada gobolka Gado iyo tan ka dhaxaloosan maamul goboleedka Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa loogeeyna sida uu kaga falcelin doono dalabka kaga yimid ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo la aaminsan yahay in uu u janjeero dhinaca dawladda dhexe doonayana in Axmed Madoobe meesha laga saaro si ay dawladdu deegaanada Jubbaland u geysato hogaamiye daacad u ah oo la shaqeyn kara dawladda dhexe ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Abiy oo ciidamadiisu ay ka howlgalaan Soomaaliya waxa uu in muddaaba farmaajo ka caawinayay siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo xal u helista xiisadaha dhamaadka lahayn ee dawladda kala dhaxeeya maamul goboleedyada ka jira gudaha wadanka dhinaca kale ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya ayaa la sheegay in qorshahan loogu yeeray Addis Ababa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna ku sugan magaalada Addis oo kaga qayb galayo shirweynaha midowga Afrika farmaajo ayaa waxa uu ka dalbaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu gacan ka geysto xal u helista khilaafka kala dhaxeeya dawladdiisa maamul goboleedka Jubbaland maadaama iminka dawladda dhexe ee Soomaaliya ay u taag laadahay xiisada kala dhaxaysa Axmed Madoobe oo gaartay meeshii ugu xumayd xukuumadda Addis Ababa ayaa isku dayaysaa inay door muhiim ah ka qaadato xalinta khilaafka dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac inkastoo Axmed Madoobe uu dhowr jeer ka biyadiiday dalabaad uga yimid ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya iyo xubno kale oo lagu tirinayo inay u janjeeraan dhinaca filla Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa aaminsan in dhexdhexaadinta ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay dhali doonto inuu ugu dambeyn isagu meesha ka baxo dawladda dhaxana ay madaxweyne iyada daacad u ah geysato magaalada Kismaayo hase yeeshee xubnaha la shaqeeya ayaa waxa ay qabaan aragti taa ka duwan oo ah in uu Axmed Madoobe aqbalo dhexdhexaadinta si loo helo deganaansho siyaasadeed oo ka hirgala deegaanada Jubbaland oo tan iyo dib u doorashadii saddexaad ee Axmed Madoobe laga dareemayay xiisad u dhaxaysay dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland iminka ayay taagan tahay xiisadii ugu baanayd oo ka aloosan gobolka Gado oo dawladdu ay ciidamo ku daabushay waxaana laga cabsi qabaa halkaasi inuu dhiig ku daato oo ay isku dhacaan ciidamada dawladdu ay halkaasi geysay iyo kuwa maamulka Jubbaland oo dhawaan isku rasaaseeyay duleedka magaalada Balad Xaawo walina halkaasi isku hor fadhiya
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay rajo wanaagsan ka muujisay shirweyne uu iclaamiyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka qayb galayay barnaamij gaar ah oo looga hadlayay waxqabadka dawladda ee 3 sano ee la soo dhaafay ayaa soo hadal qaaday arrimo ku saabsan shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ka dhacaya 15 bisha Maarso magaalada Garowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland Maareeye ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay soo dhaweynayso shirkaasi oo ah mid guud oo lagaga wada tashanayo khilaafka Puntland iyo dawladda dhexe sidii xal loogu heli lahaaba sidoo kale wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay inay ka soo bixi doonaan shirka natiijooyin muhiim ah oo waxtar u leh ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland wasiirka warfaafinta oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay madaxweyne Dani inuu ka shaqeeyo midnimada iyo horumarka dalka isla markaana uu muujiyo tanaasul wuxuu wasiir Maareeye sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka go'an tahay inay la shaqeyso madaxweyne Dani iyo maamulkiisa kana caawiso wax walba oo ay u baahan yihiin shacabka Puntland lagama maarmaana sidoo kale ay tahay in laga wada shaqeeyo danaha qaranka iyo xoojinta dawladnimada Soomaaliya hadalka wasiirka warfaafinta ee dawladda dhexe wuxuu ku soo aadayaa iyada oo wali uu jiro khilaaf xoogan oo u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Puntland oo isna garabsanaya maamul goboleedka Jubbaland oo isagana ay dawladda xurguf siyaasadeed kala dhaxayso waxaana khilaafka labadan maamul ee dawladda dhexe uu noqday mid daba dheeraaday oo ay dawladdu u taaglaadahay jumcihii ayay ahayd markii madaxweynaha Puntland oo ay dhinac taagan yihiin xubnaha golihiisa wasiirada uu iclaamiyay shir looga hadlayo ayaha maamulkaasi ka oo uu ku marti qaaday siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanada iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku matala deegaanada Puntland Dani wuxuu sheegay in shirkan lagu falaqayn doono sida uu noqon doono mustaqbalka xiriirka Puntland iyo dawladda dhexe iyadoo ay hore u jirtay hadal hayn ah in Puntland ay qorsheynayso in ay cilaaqaadka u jarto dawladda Soomaaliya magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in halka lagu xiray madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland garabka Cabdirashiid Xidig oo ku sugnaa Kismaayo madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland ee garabka Cabdirashiid Xidig ayaa laga qabtay garoonka diyaaradaha Kismaayo waxaana lagu magacaabi jiray Aadan Afay Maxamuud xilli uu ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ciidamada amniga Jubbaland ayaa la sheegay inay xabsiga dhigeen Aadan Afay oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ee Jubbaland garabka Cabdirashiid Xidig oo isna sheegtay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Jubbaland Aadan Afay Maxamuud waxa uu deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Gadow waxa uuna yahay mid kamid ah xubnaha sida weyn uga soo horjeeda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo hogaamintiisaba qaar kamid ah dadka lagu kalsoon yahay ee ku sugan Kismaayo iyo kuwa jooga magaalada Muqdisho oo Aadan Afay ku hayb ah ayaa xaqiijiyay xarigiisa ma jiro wax war oo ka soo baxay laamaha amniga ee Jubbaland oo ay kaga hadleen xariga siyaasigan balse Afay ayaa lagu tuhmayaa in uu eedahaan ku wajahayo in uu si kulul u weeraray dhawaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee isna aan doorashadiisii la aqoonsan waxa uu taageeray ciidamada dawladdu ay u daabushay gobolka Gadow taasi oo keentay in halkaasi lagu xiro sida ay sheegeen dad ku dhow siyaasadda Jubbaland Aadan Afay ayaa u ololeynayay in dawladdu ay gacanta ku dhigto dhammaan deegaanada Jubbaland gacantana laga baxsho gobolka Gadow Axmed Madoobe iyo maamulkiisa waxa kale oo dawladda kala shaqeynayay sidii ay Axmed Madoobe uga saari lahayd gudaha magaalada Kismaayo taa oo keentay in ugu dambeyn la xiro haddaba hogaamiyaha uu ku-xigeenka u ahaa ee isna sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa ka hadlay xarigiisa Cabdirashiid Xidig oo kamid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya horeyna u sheegtay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Jubbaland ayaa war ka soo saaray xarig loo geystay ku-xigeenkiisii Xidig wuxuu xaqiijiyay in ciidamada ammaanka ee Jubbaland ay ku-xigeenkiisii ku xireen magaalada Kismaayo wuxuu Xidig sheegay in Aadan Afay ay afduub u geysteen ciidamada maamulka Jubbaland lagana hor istaagay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo oo uu u duulo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo uu ku wajahnaa wuxuu ku eedeeyay Axmed Madoobe iyo xubnaha la shaqeeyaba inay u dhaqmayaan qaab la mid ah kan ay u dhaqmaan ururka Al-Shabaab oo ay afduub u geysanayaan cid kasta oo iyaga ka ra'yi duwan wuxuu ugu baaqay inay si degdeg ah xorriyadiisa ugu soo celiyaan madaxweyne ku-xigeenkiisii Aadan Afay oo lagu xiray gudaha magaalada Kismaayo
magaalada Kismaayo waxa ku wada sugan 3 hogaamiye oo kala sheeganaya hogaanka Jubbaland waxayna kala yihiin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isagu aaminsan in markii saddexaad oo xiriira loo doortay hogaamiyaha maamulka Jubbaland waxa kale oo isaguna madaxweynaha Jubbaland sheeganaya Cabdirashiid Xidig iyadoo ay jirto in Cabdinaasir Seeraar uu isna aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland khilaafkan oo ay beesha caalamku isku dayday inay wax ka qabato ayaysan wax guul ka gaarin wada hadallo ay doonaysay in dhinacyadan la isugu keeno iyadoo ay kor kala socoto dhammaan dhinacyadan dawladda dhexe oo iyaduna damacsan inay dhisto maamul ka duwan kan ka jira iminka gudaha magaalada Kismaayo oo laga yagleelo deegaanada Jubbaland ka oo loo doorto madaxweyne iyo labadiisa ku xigeen si ay u hogaamiyaan deegaanada Jubbaland madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf welina aaminsan inuu yahay madaxweynaha Galmudug ayaa weli ku adkaysanaya mowqifkiisa ku aadan in uu yahay madaxweynaha saxda ee maamulka isaga oo diiday dalab uga yimid horay madaxweynaha Galmudug ee lagu doortay Dhuusamareeb Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor wuxuuna iminka mar kale Xaaf ka biyadiiday dhexdhexaadin ay wadeen waxgaradka deegaanada Galmudug oo loogu kala dab qaadayay isaga iyo dawladda dhexe odayaal dhaqameed ka tagay magaalada Dhuusamareeb oo Xaaf kula kulmay magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inaysan natiijo wanaagsan kala kulmin Xaaf wuxuuna u sheegay in uu yahay madaxweynaha saxda ee maamul goboleedka Galmudug madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waday bariyihii u dambeeyay kulamo lagu xalinayo khilaafka ka jira deegaanada Galmudug iyo kala aragti duwanaanshiyaha u dhaxaysa isaga iyo Xaaf iyo Sheekh Shaakir shirar gaargaara iyo kuwa guud oo la yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa lagu falaqeeyay khilaafkan iyo sida xal loogu heli karo odayaal dhaqameedka laga diray magaalada Dhuusamareeb oo ay wax ka ogay dawladda dhexe madaxweynaha Galmudug ee dawladda taabacsanna uu gadaal ka riixayay ayaa tagay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyagoo madaxtooyada magaaladaasi kula kulmay Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo isagu aaminsan in mudaxileedkiisa uusan wali dhammaan oo ay 15 bilood u hartay uu yahay madaxweynaha saxda ee maamulka Galmudug Xaaf wuxuu sheegay in uusan aqoonsanayn waxba kama jiraan ay ahayd natiijadii ka soo baxday doorashadii Dhuusamareeb ee Qoorqoor madaxweynaha loogu doortay sidaasi darteedna loo baahan yahay in dawladda dhexe ay isaga la shaqeyso hadii la doonayo xalka Galmudug waxa kale oo uu Xaaf u sheegay waxgaradka ugu tagay waanwaanta in uusan waqtigan diyaar u ahayn in uu la kulmo madaxweynaha maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb lagu doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Aalusuna ayaa dhankooda culays weyn waxay saarayaan madaxweynaha cusub maadaama Sheekh Shaakir oo horay u ahaa madaxii xukuumadda Galmudug kana mid ah hogaanka Aalusuna uu isaguna aaminsan yahay inuu yahay madaxweynaha Galmudug saldhigna ka dhigtay xarunta Xere Inji oo uu kula kulmayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiil taabacsan garabka Aalusuna Sheekh Shaakir oo la aaminsan yahay in isagana uu gadaal ka riixayo Macallin Maxamuud hogaamiyaha guud ee Aalusuna ayaa ku cadaadinaya dawladda inay isaga baxdo magaalada Dhuusamareeb inkastoo madaxweynaha cusub ee Galmudug uu amar ku siiyay ciidamada taabacsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb jooga inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa waxa kale oo amniga magaaladaasi ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda AMISOM qaasatan wadamada Djibouti iyo Ethiopia xaalad jahwareer ayaa ka taagan siyaasadda Galmudug waxayna beesha caalamku ku baaqday wada hadal iyo in xal midaysan laga gaaro khilaafka iminka jira dawladda federaalka iyo beesha caalamka ayaa aqoonsan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo toddobaad ka hor lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayna doorteen xubnaha baarlamaanka Galmudug oo horay ay ugu hambalyeeyeen una soo xuleen dhinacyada iminka ka soo horjeeda ee Aalusuna ay kamid tahay Aalusuna ayaa ku eedeysay dawladda inay uga baxday heshiisyo ay horay ula gashay isla markaasina ay ku takrifashay doorashadii Dhuusamareeb oo dawladdu ay dhaqaale fara badan ku bixisay si ay u soo saarato shaqsiga ay la rabtay madaxweynaha Galmudug inkastoo eedahaasi ay dawladdu iska fogeysay madaxweynaha cusub ee Galmudug ayaa iminka isku dayaya in uu la tacaalo mashaakilka siyaasadeed ee ka jira deegaanadiisa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo ku sugan duleedka degmada Beled Xaawo ayaa si kulul kaga hadlay xiisada maamulkiisa kala dhaxaysa dawladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dawladdu ay ka wado gobolka Gedo Maxamuud Sayid Aadan ayaa marka hore fariin u diray beesha caalamka isagoo ka dalbaday inay isha ku hayso xaaladda Jubbaland iyo dhibaato uu sheegay
in ay dowladdu ku hayso deegaanada Jubbaland wuxuu Maxamuud Sayid Aadan ka dalbaday xubnaha beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya inay farageliyaan xiisada gobolka Gado iyo ciidamada ay dowladdu halka ku daabulayso ay wax ka yiraahdaan sidoo kale wuxuu ku eedeeyay madaxda qaranka inay qalqalgelin iyo amni xumo iyo burburin ay ku hayaan hay'adihii soo kobcayay ee dowlad goboleedka Jubbaland beesha caalamka ayuu kula taliyay inaysan dowladda ku taageerin ku tagrifalka hantida qaranka iyo u adeegsashada ciidamada qalabka sida burburinta dowlad goboleedyada ka jira gudaha Soomaaliya oo loo baahnaa in la taageero xilligan wuxuu shaaca ka qaaday Maxamuud Sayid Aadan in Jubbaland oo xilligan garab istaag iyo bogaadin uga baahnayd dowladda dhexe taasi bedelkeeda ay ka heshay duulaan ay ku qaaday dowladda dhexe deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland qaasatan gobolka Gado ugu dambeyntii wuxuu tilmaamay in mas'uuliyadda wixii dhibaato ah ee ka dhaca gobolka Gado iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland ay qaadayso dowladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo uu sheegay inuu amar ku bixiyay in la qabsado oo xoog lagu la wareego deegaanada Jubbaland madaxweyne Farmaajo ayuu ku eedeeyay inuu u kala eexanayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubbaland hadalka madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu imaanayaa iyadoo ciidamada dowladda ee la wareegay gobolka Gado ay wacad ku mareen inay sugayaan amniga gobolkaasi isla markaasina aysan ogolaan doonin in talaabooyin iyo dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo dowladda dhexe laga sameeyo gudaha gobolka Gado ciidanka dowladdu ka daabushay Muqdisho ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa aad u tiro badan oo maamulka Jubbaland ku qasbay in ciidamadiisi uu kala baxo guud ahaan gobolkaasi inkastoo Jubbaland ay ku eedeynayso dowladda Soomaaliya inay duulaan ku tahay deegaanada maamulkaasi haddana wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegay in ciidamada la geeyay gobolka Gado loogu talagalay inay sugaan amniga xuduudka iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab maamul goboleedka Puntland ayaa uga digay ardayda wax ka barata deegaanadiisa in ay taageeraan dowladda federaalka qaasatan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya amar ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu amray dhammaan ardayda iyo goobaha waxbarashada ee ku yaala Puntland in aysan ku kici karin fallid ku ah dowlad goboleedka Puntland isla markaasina aysan qaban karin dibadbaxyo looga soo horjeedo dowlad goboleedka Puntland laguna taageerayo wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya waxa sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Puntland ay ku qasabtay arday horay dibadbax uga dhigay gudaha magaalada Boosaaso inay warbaahinta ka soo muuqdaan oo ay raaligelin ka bixiyaan hadalkii ay horay u sheegeen ee ahaa inay taageersan yihiin wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ardayda dibadbaxa dhigay oo wax ka barta dugsi ku yaala gudaha Boosaaso ayay wasaaradda waxbarashada ee Puntland ku tilmaantay in ay yihiin kuwo dhaqaale ka qaata dowladda federaalka ee Soomaaliya oo duminaya jiritaanka dowlad goboleedka Puntland tirada ardayda ee dibadbaxa dhigay qaasatan kuwii warbaahinta la hadlay ayaa mar kale ka soo muuqday sida la sheegay telefishinka maamulka Puntland iyagoo oo raaligelin ka bixinaya hadalkii ay horay u sheegeen kadib cadaadis uga yimid wasaaradda waxbarashada ee Puntland wasaaradda waxbarashada ee Puntland ayaa la sheegay in ardayda ku sugan deegaanadaasi oo ay horay uga hor istaagtay inay galaan imtixaanka guud ee qaranka ay qaado dowladda federaalka qaasatan wasaaradda waxbarashada ee qaranka ay haatan ku qasbayso in aysan u doodin xuquuqdooda Puntland iyo dowladda dhexe khilaafka u dhaxeeya oo meeshii ugu xumayd gaaray ayaa sababay in kumanaan arday oo horay uga qalin jabisay dugsiyada waxbarashada ee Puntland iyo kuwa sanadkan ka qalin jabinayaba ay waayaan shahaadadii cadeynaysay inay dhamaysteen waxbarashadooda jaamacadna ay ku tagi lahaayeen maamulka Puntland ayaa dhawaan waxa uu daaha ka qaaday in uu hayo bedelka shahaadada waxbarashada ee dowladda Soomaaliya isla markaasina shahaadada maamulka Puntland lagu tagi karo dalalka caalamka sida ay iyagu sheegeen inkastoo arday dibadbax dhigay ay wax lagu qoslo ku tilmaameen hadalka dowlad goboleedka Puntland ee ah in shahaadada maamulkaasi lagu tagi karo jaamacadaha caalamka wasiirka waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa si weyn u soo dhaweeyay hadalka ardayda wax ka barata deegaanada Puntland ay ku dalbanayeen in ay wasaaradda waxbarashadu
uu ka qaado imtixaanka midaysan ee qaranka si ay shahaadadooda u helaan afhayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee Somaliland Barqad Jaamac Batuun ayaa waxa uu ka hadlay qiraafka cakiran ee ka dhex qarxay culimada gobolka Awdal iyo barasaabka gobolkaasi oo lagu eedeeyay inuu diinta islaamka caayay waxa uu sheegay afhayeenka xisbiga wadani in hadalka culimadu uu yahay mid sax ah balse xukuumadda oo siyaasadeynaysa gefka uu ku kacay barasaabka gobolka Awdal ay u qiildayayso doonaysana in culimada dambi kale ay dusha uga tuurto wuxuu kula taliyay xukuumadda Somaliland inay tallaabo ka qaado barasaabka guud ee gobolka Awdal oo sida uu sheegay u gafay diinta islaamka dhinaca kale culimada gobolka Awdal ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in hadalkoodu uu ahaa mid sax ah loona baahan yahay in tallaabo laga qaado barasaabka gobolka Awdal ee ku eedeysan inuu u gafay diinta islaamka waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya aad ka daawanayseen Garaad TV